weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada la yiraahdo Togoga oo ku taala meel 15 kilomitir dhanka koonfureed ka xigta magaalada Maqelle ee xarunta gobolka Tigreed ee dhawaanba ay ka socdeen colaadda u dhaxaysa dawladda federaalka Itoobiya iyo maamulkii Tigreed ee xukunka laga tuuray. dhowr qof ayaa dhaawaca sida la sheegay, kuwa kalena waa ay dhinteen. nin goobjooga ah oo ku sugan ama ku jira isbitaal lagu magacaabo Adeer ayaa waxa uu sheegay in uu haleelay firarka qaraxaasi ama duqeyntaasi. waxa uu sheegay inuu arkayay dhowr qof oo dhulka ku dhacay markuu qaraxa dhacay kadib ama weerarkaasi dhacay. waxa uu sheegay in duqeyntaasi uu ku dhintay nin shakhsiyan uu isaga yaqaan. haweeney kale oo isbitaalkaasina ku jirta ayaa BBC-da u sheegtay in xaaladdu ay ahayd mid jaha wareer ah kadib markii uu dhacay weerarkaasi duqeynta ah. waxayna sheegtay in ay arkaysay meydad dhulka daadsan oo dad tiro badan ah. dhakhtar ka howlgala isbitaal ku yaala halkaasina waxa uu sheegay in ay daweeyeen 7 qof oo qaba dhaawacyo. waxa uuna sheegay in loo diiday in ay tagaan goobta uu weerarka ka dhacay si ay u daweeyaan dadka dhaawaca ah ee duqeymahaasi ku dhaawacmay. wakaaladda wararka ee Reutersna waxa ay sheegtay oo ay soo xigatay dhakhtar ka howlgala isbitaalkaasi inuu sheegay qiyaastii 43 qof in ay daweeyeen oo dhaawacu ka soo gaaray weerarkaasi. hase yeeshee ma aysan cadaynin tirada dadka halkaasi ku dhintay. xasan, bal waa meel sidee ah meesha ay duqeyntu ka dhacday haddii aynu dadka fahansiino? cabdiraxmaan dhibil, sida ay sheegayaan dadka goobjoogayaalka ee BBC-da la hadlay, waxay sheegayaan in goobtu ay ahayd goob suuq ah oo dad badan ay isugu yimaadeen oo duqeyn dhanka cirka ah lala beegsaday. waxayna duqeyntaasi sheegeen inay geysteen ciidamada militariga ee dalka Itoobiya. hase yeeshee militariga Itoobiya waa ay beeniyeen inay beegsadeen goob ay ku sugan yihiin dad rayid ah. haweeney afhayeen ah oo hadashay militariga dalkaasi Itoobiya ayaa waxa ay sheegtay in ay gebi ahaanba sax ahayn sheegashada ah in la weeraray meel suuq ah oo dad badan ay joogeen. waxay sheegtay in militarigu uu awoodo in si taxadar leh oo u bartilmaameedsado goobaha ay joogaan cadowga. waxayna intaasi ku dartay in weerarkaasi uu ahaa mid loo geystay xubnaha ururka argagixisada sida iyadoo hadalka u dhigtay, balse wax rayid ah aysan ku dhiman. dowladda Itoobiya ayaa dhawaan maamulkii TPLF iyo xisbigiiba waxa ay ku dartay waxay ku dhawaaqday inay yihiin urur argagixisanimo oo baarlamaanka ayaa arrintaasi la horgeeyey. kumanaan qof ayaa ku dhintay dagaalo ka soconayay gobolkaasi Tigreed oo dhexmariyay ciidamada dowladda iyo ciidamada Tigreed. malaayiin qof oo kalena waa ay ku barakaceen oo qiyaastii 8 bilood oo halkaasi ay dagaalka ka socdeen. dagaalkan u dambeeyayna waxaa la sheegaya inuu soo xogeystay usbuucii la soo dhaafay oo maamulkii Tigreed iyo dagaalyahanada Tigreed la sheegay inay qabsadeen deegaano iyo weliba tuulooyin ku yaala gobolkaasi.